bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal kusoo dhowaada youtube-ka wararka soomaalida qodobada ugu waaweyn aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa kasoo horjeestay qorshe uu madaxweynaha soomaaliya damacsanaa inuu xilka kaga qaado wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya iyo weliba taliyaasha ciidamada ilaa xog ogaalaya inuu xaqiijiyey in ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre uu ka horyimid qorshe madaxweynaha soomaaliya uu damacsan yahay inuu xilka kaga qaado taliyaasha ciidamada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir si isbedel amni loogu sameeyo magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya. xogaha aan helayno ayaa tibaaxaya in madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo uu habeen ka hor isugu yeeray taliyaasha ciidamada booliiska militariga iyo weliba gudoomiyaha gobolka banaadir kuna canaantay haddaysan amniga caasimada sidan u dhaami karin inay xilka isaga degaan si shacabka rafaadsan loo samato bixiyo. intaasi kadib madaxweyne farmaajo ayaa go-aansaday inuu xilka ka qaado gudoomiyaha gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow iyo wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya maxamed abuukar islow. labada mas-uul ayaa eedda ugu badan dusha ka saaray waxaana madaxweynaha u arkaa inay ku fashilmeen mas-uuliyaddii lagu aaminay bulshadana ka sugaysa inay wax badan u qabtaan. wararka arrimahan la xiriira oo isa soo taraya ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu madaxweynaha ku qanciyey inuu u daayo markaan isbedelka amni ee magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka islamarkaana si caqliyeysan uu wax ku xalinayo. dhanka kalena shirar gaargaar ayaa magaalada muqdisho ka soconaya kuwaasoo yeelanayaan siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo waxgaradka kaasi oo intiisa badan lagu lafagurayo sidii wax loogu qaban lahaa xaaladda amni ee kusoo korortay magaalada muqdisho lagulana xisaabtami lahaa mas-uuliyiinta loo igmaday oo madaxweynaha ugu horeeyo. maalmaha soo socda ayaa la filayaa inuu isbedel dhanka amniga iyo maamulkaba uu ka dhaco magaalada muqdisho taasi oo inta badan saameyn ku yeelan doonta maamulka gobolka banaadir. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen youtube-ka wararka soomaalida waa naga intaa. haddaba fadlan sabscribe saar janalkan haddii aad ku cusub tahay sheer garee faalana ka bixi waadna maasan tahay.